يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم أيها النبي عليه الصلاة والسلام كوا سماهم كوي خيار كوي خيارتها معهم برسولكم markii niman ay dileen xaasaskoodii ayaa haweenkoodana soo yaaceen guriyihii rasuulka ay geesiisay dhoofteen marka rasuulku wuxuu ku tilmaamay kuwa xaaskooda dilay inaan khiyaar ahayn inaan akhlaaq lahayn Aisha radiyallahu anha xadiidkii laga wariyo wuxuu ma daraba rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam imra'atan lahu wala khadiman qat ayat rasuulka ilaahi waligiis ma dilin bay tiri xaasoo qabo يقف أديجي من مدلنين ولا ضرب بيده شيئا قط إلا في سبيل الله أو تنتهك محارم الله فينتقم رسولك إلهي وريجي عنتي سوري وحكمه فم بيتري إلا جدك إلهي أسوق وقدك على ما يموجي أما محارمت إلهي لدلاعي أمرك أو أرجوسه حديث كان النساء أيا وريجي waxaa marka halkaas laga qaadanaya diritaanka la dilo qofku xaaskiisa oo dilaahi dilka la sheegay inaanu ahayn kay dadku ka caada yeesheen ama lagu dhaqmayo dadka juhalada ay ku dhaqmayeen inaanu san ahayn ee uu yahay dareen kaliya shucuurka waan ka xumahay oo kale inuu yahay maxaa yeelay rasuulka oranay calayhi salaatu wasalaam xaqqa zawjku uu ku leeyahay gabadha hadaynu wax ka soo qaadno إلهي قرآن كيسوح كلية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الرجال قوامون على النساء إلهي سبحانه وتعالى وحوقا لغاي إني كوي أتاغن مامولك قويسك إيا حاسك مامولتان كسي قيادتي سكوي أتاغن إني يهين رقو أيو إلهي عليه سبحانه وتعالى سيدا بقفك وليقاهي أو رعيدي سأمامولو إنو قفك زوجكاهي قرقي سأمامولو أو حل إيا المسؤولية إسكسارو ما هينو نقضي مستهتر قاد كعونا يو خمر هذا ميلها كسو عبا يو وحدران كشقين يو أن لأقونين كاسي آبالانا دانتا أمن لأنا دانتا رنتي وحويان قيادة أما تكليفك إلهي أو صاري قوامده وتكليف تشريف معه رنتي وإلهي كلف وينك وحل ليه وشرف معها معنى هذا وإنه كصوبها مسؤولية إلهي أو صاري قبله نقانتات وكما قعابي إني أطيع عن إلهي سبحانه وتعالى وحق إلهي أو كواجبي وكو إلزامي كصوبها عن كل قاعيكنا حقوق ذا أزواج ذو يستاغان وأيمان حفظيان أزواج سودا marka ay maqan yihiin maalkoodan oo xifdiyaan cirdigoodan oo xifdiyaan asraarta guryahoodan ay xifdiyaan ayuu xadiidkaasi oo aayada quraan tusinaysa sida ibn kathir iyo qeyrkood ku fasireen ibn jarir tabari waajibkooda waxa ka mid ah inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ku dhaqaaqaan tarbiyatul atfal iyo wixii ay kari karaan hadi jeerana ay noqdaan sitran li azwaajihinna inay noqdaan hadi jeerale عوراتك غورغودا inay faafinin la gal wala muslim kala midna inay u faafinin ee daaima ay isku dayaan inay ilaahi subhanahu wa ta'ala dariiqiisa xaqa ay ku xaliyaan hada jeeraale waxa ku badan hada jeeraale dadka aanan saalihaadka ahayn ama gabdhahan saalihaadka ahayn ama nimankan saalihiinta ahayn ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu hada jeer dhexdooda shar ka shido laakiin dadka hadii saalix ay yihiin labaduba ama midkood uu saalix yahay khayr badan baa halka yaal nabigu ka digay tacaalimta nabiga in la qaataana waajib weey uu ka digay nabiga kaleey salaatu wasalaam shiqaaqa guryaha iyo arrimaha la xalil la yahay waxa u saldhiga hadii jeeraale waxaan dadku ka hadli karinin oo aan banaanka la soo dhigi karin mucaasharadii oo la isu diido maanta dhaqanno badan ayaa laga yaabaa inay u sabab yihiin waxyaalaha guryaha duminaya hadii jeeraale ama ninkii uu zina ku dhaco ama gabadhii zina ku dhacdo oo midka kala damco inuu ka argoosto oo kaleeto asagoo ku argoosanaya muaamaladii sharciga ahayd inuu ku tunto markaas nabigu xadiidka abi hurayra wuxuu leeyahay ida da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbanan 'alayha la'anatha al-mala'ika hatta tusbih muttafaqun 'alayh hadii ninkii gabadhii ugu yeero firashkiisii guri gogosheed oo ugu yeero wa aanay u imaanin
oo kolkaa hoydo asagoo u caraysan ayada malaa'igtoo dhan ayaa lacnada ilaa ay ka waabarisato xadiidka muslim bukhaari ayaa wariyey waxaa meesha markaa xadiid kaleeto riwaayo kaleeto ayaga u sugnaatay naftigooda idaa baatat almar'atu haajiratan firaash zawjiha lacanatha almalaa'ikatu xataa tusbix haddii gabadhiina ay hoyato ayadoo ka haajirtay gogasha ninkeeda ka haajirtay malaa'igta ayaa lacnada ama lacanad ku ridaa ilaa ay ka waabarisata buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleeto rasuulkeenna waladii nafsii biyadih ma min rajulin yadcuu imra'atahu ilaa firaashihi fata'baa calayh ma jiro nin xaaskiisa gogashiisa ugu yeerayo oo kolkaa xaaskiisu ay diidayso ilaa kana aladii fi samaa'i saakhitan calayha xataa yardaa canha haddii ay gabaru gogashii ninkii oo gogashii ugu yeero xaaskiisii oo ay diiddo ilaahaygii naftaydu gacantiisay ku jirtaan ku dhaartee ilaaha samada joogaahay waa u caroodaa raallina kama noqdo ilaa ninku gabadha uu raalli ka noqda buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaa ka muuqata marka inay tahay zawjkeedii gabadho inay ateecdo oo wixii mubaaxa oo sharciga ay ku ateecdo inay waajib ku tahay haddii uu u yeero marka oo aanay wax cudura lahayn oo ay ka reebteento markaasi yeeritaankaasi inay keeni karto naxariista ilahay in laga eriyo ilahay inuu ka eriyo inay keeni karto waxay kaloo keeni kartaa gabadhu hadday ninkeeda isu diiddo in ay zino ku dhacaan midkood inay keento waxaa keeni karta wixii ilaahay xalaaleeyey subxaanahu wa tacaala ee ahaa fii dilli alxayaati zawjiya inay markaasi gaarsiido nufuur iyo kala carar oo gurigu markaasi ku dumo talaaq uu yimaado ayay keeni karaysaa faaxishana markaasi ay ku hirgasho xadiidkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib oo wariyey wuxuu tusinayaa xaqaasi inta uu la egyahay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal ida daca arajulu zawjatahu lixaajatihi falta'tihi wain kaanat cala atanuuri ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam meeshay muufaha ku dubaysaba ha joogtay hadduu ninkii u yeero waa inay u timaado soo orda buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waa inay ka shaqaydaa inay ninkeeda raalli gelido fii xuduudi alistitaaca wa fii xuduudi asharci ma ahan waxaan ilaahay waajibinin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele waxaad garanaysaa waxaa laga yaabaa ninku inuu haweenay arko socota sidii rasuulkeennaba calayhi salaatu wasalaam ku dhacday oo kolkaan naftiisa wax galaan nabigu isagoo fadhiyay sidaasoo kale gabadhi soo martay haweenay soo martay nabigu waa kacay gurigiisana waxaa u dhowaa sawda ayaa u dhoweyd kolka gurigiisa u galay saxaabadiina meeshuu uga tegey waa soo noqda way la yaabeen wuxuu yidhi marka gabarh baa soo martay markaa waan kaco ahalkaygii baan u galno xaajadeeda ka soo gutay haddii mid adinka idinka mida sidaa ku dhacdo ahalkiisa degdeg ha u aada buy nabigu calayhi salaatu wasalaam kolka haddii sidaasoo kale ay jirto oo aanay istijaaba jirinin markaasi ka warran ama aynan is-ajiibi jirinin waa dhibaato weeyaan xadiidka abi hurayra nabiga calayhi salaatu wasalaam low kuntu aamiran axadan an yasjuda liaxadin laamartu almar'ata an tasjuda lizawjiha rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiix haddii qof aan amrayo qof inuu u sujuudo ma bannaana shareecada islaamka qof inuu qof kale bani aadama u sujuudo ilahay mooga cid kale in loo sujuudaa ma bannaana laakiin haddaan ahaan lahaa buu yidhi inaan amro qof inuu u sujuudo gabadhii baan amri lahaa ninkeeda inuu u sujuudo buu yidhi dabcan ninkaasi waa kee waa mid astaahila oo xaqeedii garanaya wey nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii ummu salama ayumaa imra'atin maatat wa zawjuhaa canha raadin dakhalat iljanna buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabar kasta ee muslimad ah ee dhimata ayadoo ninkeeda uu raalli ka yahay jannaday gelaysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni bidaayada ugu horraydaba maca alfaa'iziinay ku jirtaa weeyaan marka ninkaa la raalli gelinaya oo gabadha mu'minadaahi ay raalli gelinaysaa mid mu'diyahoo ilaahay xuduuddiisii shareecadiisa ku tuntamiya mise waa mid ilaahay ateecay weeyaan dabcan waa mid ilaahay ateecay weeyaan haddii ay marka gabadhaasi mu'mino tahay hadday gaal uu qabo ay gaashaas raalli gelida waxba qiima ma laha maxaa yeele gaal ilaahay janno ma geynay kolka waa inay mu'mino tahay waa inayna gudataa xaqa ilaahay uu ku leeyahay ee zawjkeeda uu ku leeyahay markaa waxay gaaraysaa ilaahay agtiisa rida ayay gaaraysaa jannada ay ku gasho ilaahay wuu u dembi dhaafaya subxaanahu wa tacaala sayi-aadkeediina wuu qarin uuna ka raalli ahaan eeddadii
iyo habaryartii waxaynu idhi gabadhu waa eeddu waa habar yar waxay leedahay silati alarxaam ayuu ilaahay soo geliyey subxaanahu wa tacaala sida ilaahay qur-aankiisa ugu yidhi wattaquu allaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam